inaynu daahfurnay imtixaankii galaaska form 4 ama galaaska 12aad ee dugsiga sare iyadoo aynu la halgamayno ka hortagga iyo difaaca cudurka COVID-19 ee dunida ku faafay intii uu dilaacayna runtii jawaab iyo dadaal fara badan oo waafi ah ay xukuumaddu samaysay madaxweynuhu sameeyay ra'iisul wasaaruhu hormuud ka ahaa meel fiican buu marayaa maanta inagoo tallaabooyinkii loo baahnaana fulinayna ayaa imtixaanadii aynu daahfurnay secondary schoolka galaaska afraad ardaydu ay qaadanaysaa imtixaanaadkoodii waxbarashaduna waa soconaysaa halganka wax kasta oo inaga hor yimaada ama amniga ha noqoto ama cudurkan dilaaga ee hadda dilaacay ha noqotee isna waynu wadaynaa waa arkaysaan in maanta 35,000 oo arday ku dhowaad ay imtixaanadii u fadhiisanayaan degmooyin fara badan iyo gobolada ay uga qayb galayaan si ay uga qayb qaataan imtixaanka shardiga ah oo secondary schoolka inuu ardayga ka gudbay iyo in kale una u sii gudbo heerarka kale ee waxbarashada ee jaamacadda waa marxaatiba ka tihiin amnigeenu inuu fidayo dawladnimadeenu inay fidayso waxbarashada inay tayadeedii sii kordhayso waxbarashada iskuullada waliba dawladdu ay maamushaa intii xukuumaddani jirtay ay ballaadheen waan ku dadaalaynaa weli halkii loo baahnaa waa ku soconnaa maynaan gaadhin ilaa aan gaadhno 100% ilmaha Soomaaliyeed in uu iskuulka aado oo uu wax barto aynu la dagaalano jahliga qoris akhris la'aanta aqoonta aynu dhisno oo aynu ballaadhino maskaxda ilmaha Soomaaliyeed aynu korino oo kabcino oo dhinaca wanaagsan ee wadaniyada ah ee nabadgelyada ku dhisan oo inuu nabad ku noolaado nabadna lagula noolaado ilmuhu ogol yahay aan maskaxda laga meedhin manhajka aynu rabno inaynu ka turjinaa ka weey mid nabad ku wada noolaansho ah mid dal jacayl ah mid wadaniyad jacayl ah mid isku xidhnaansho ah mid bini'aadminimada iyo islaamnimada iyo qofnimadaba wax taraya Soomaalinimada wax taraya marka halgankaasaynu ku jirnaa maanta guul bay noo tahay sanadkii afraad inaan daahfurno imtixaanka oo 35,000 oo arday ku dhawaad maanta ay u fadhiisanayaan Soomaaliya ha noolaataan leeyahay ha israacdo ha wada jirto waa mahadsantihiin